subxaanka ninka saaka jecelo xilka saal hamoodine dhulka aan ku soconayo samaduu ka culus yahay dhulka aan ku soconayo samaduu ka culus yahay yuusibiq idinku gelin yuusibiq idinku gelin ninka saaka jecelo xilka saal hamoodine dhulka aan ku soconayo samaduu ka culus yahay dhulka aan ku soconayo samaduu ka culus yahay yuusibiq idinku gelin yuusibiq idinku gelin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال halkani waa Home Cable TV kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Haladay oo aan toddobaadkan kusoo qaadan doono gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Engineer Faisal Al-Waraabi oo gurigiisa ku booqanay mudooyinkan ugu dambeeyay gudoomiyuhu dalka ayuu ka maqnaa isbeddello kala duwan ayaa waxay ka dhaceen geeska Afrika isbeddeladaasi oo saameyn togan iyo mid tobanba ku leh guud ahaan Soomaaliland gudoomiyaha ayaa ugu horeyn bal waxaan weydiinay aragtidiisa la xiriirda isbeddeladaasi geeska Afrika oo saameyn xoog ku leh imika guud ahaan qaaradda Afrika iyo caalamkaba bal sida uu arko bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil aalamiin wasalaatu ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam doorta isbeddeladan ka socda waxa weeye ilaa intii uu dhacay magaalada quwadii magaalada NATO amba Ruushka burburay Soviet Unionki waxa adduunka jiray quwad kaliya oo Mareykan laakiin hadda waxa soo baxay quwado cusub soo baxaya oo China ka mid yahay Ruushka ka mid yahay magaalada tartankii waxa bilaabmay magaalada quwadaha waaweyn ayaa bilaabmay saamaqotana waxa noqotay meelaha aad iyo aad saameyn ku leh awoodda iyo tartanka waxa noqotay geeyin deganahay inagu mar waxaan nahay Hong Kong deganay aynu ku noolahay geeska mar waxaan ku noolaa baddi caseed midna waxaan soo geliyay Middle East soo gelina intaas oo xaydaab oo meelaha adduunka imka lagu tartamayo in inta bartanka u fadhina marka isbeddelka ka dhacay Ethiopia waxa weeye isna mid isbiirsaday buu oo ilaa 2000 iyo magaalada waxaan oran karnaa 16kiiba maadaama markuu wadanku muddo ku jiro wadan cadaadisa oo furfurneen laakiin horumar keeno middle class ba sameysmaya mutacalimiin ba sameeyay dhaqaale kordhiya marka dadkaasi ma ogolaanayaan inay ku noolaadaan sidii markii hore ay aabayaashood iyo awsha ku noolaan cilmi lahayn marka middle class ka baad kacay oo u badan qoomiyada Oromiya ayaa kacday taas waxay keentay in magaasi loo badbaadiyo Ethiopia markaasna waa la badbaadiyay si aan markii mangista la ridiyo waa la badbaadiyay qabanaya EBRD qabanisay waxa noqday inuu change nabadgelyo dhaco marka waxa soo hortay arinto way gudoomiye marka laga hadlo geeska Afrika isbeddeladiisa waaweyn waxa kamid ah tanaasulka Ethiopia iyo Eritrea dhulkii la isku haystay baa kamid ah baadhame waxa kale oo kamid ah imika Ethiopia Eritrea iyo Djibouti laga yaabo inay ku heshiiyaan goobtii uu dagaalku ka dhacay la yaqaan Dumeera oo taasina isbeddel kale ay la mid tahay Soomaaliya iyo Ethiopia moodo hadana sidii hore isku soo dhawaadeen isbeddeladaasi guud ahaan Somaliland saameyn noocyo bay ku leeyihiin horta waa mid aan ku sheegay Ethiopia heshiiskan Eritrea iyo Ethiopia ra'iisul wasaaraha cusub Abiy Ahmed waxa weeye policy-giisa waxa weeye in horta dalkiisa oo horumar keena development keeni karimaysi haddaad geeyo ku nooleen aad nabad kula nooleen jaararkaaga marka wuxuu doonaya horta marka inuu iska soo baqtiyo jaararkiisa wixii meesha ay jirto khilaaf jiro inuu soo xaliyo kabacdi uu soo jeesto horumarka dalkiisa awgiisa marka wuxuu ka bilaabay Eritrea wax fiican buu sameeyay heshiis go'aankii la gaaray Eritrea lagu gaaray dawladdii hore diiday ayuu soo ogolaaday oo fuliyay when it comes to Eritrea iyo Djibouti arinteedu way ka adag tahay Eritrea iyo Ethiopia laana tan laga ma garnaqin madaxweynaha Eritrea isoo wuxuu qabaa in berigii lagu daray Ethiopia lagu daray Eritrea in dhulkoodii la balaqaystay
maadaama iyagu sidii inagu Soomaali ugu darsanay awood ma lahayn gobol baan noqonay iyagoo gobol waa hayaan iyo dhulkooda la bilaqaystay magaasaa baadama lagu daray dhulka Ethiopia lagu daray magaasaa gasiiradahana lagu daray magaalada Djibouti waa fikradu qabo marka ma filiyo in si hawlyar ah dhulkaasna waa dhul very strategic oo gasiiradahaasi marka ma filiyo inuu isaga ninka inuu si hawlyar arrintaas u dhamaanayso oo ka adag tahay Eritrea inaga markay timaado de sidaan ku sheegay intaas waxaan daabaynu ku jirnaa Middle East baan ku jirnaa Red Sea baan ugu badan wadanka Red Sea ugu badan dhulka weyn xukumaan ilaa 750 kilomitir geeskii baan nahay intaas oo weyna saameynaysaa laakiin waxa jira qoladan Soomaaliya way iska dhex boodboodaysaa iyadoo waxa la wax deliver gareyn kartaa iyadoo farmaajo he will contribute nothing laana wadankiisii ma haysto international borders wadkiisa mid qura ma xukumo Somaliland bay aad u iyo Ethiopia isku xiran oo dhaqaalaha ahaanta iyo istiraatiijiyad beerta istiraatiijiyad marka hadii isagu magac soo iska dhex boodayay wax Allah wuxuu contribute ka keeni kara halka ma jirto isagu laakiin inagu marna dadka la marginalize gareyn karo la gareyn karo Ethiopia iyo Eritrea iyo Djibouti manihin laano meesha ugu muhiimsan inaga degan oo Somaliland baa degan oo sidee marka de waxa weeye dhulka la isku waxa weeye position geographic halkan deganahay waa badan casaa'id khayraadku maraan adduunka shawrayso da inta yare ma jirteen ay ka soo gashay moojaani reerka siibaane inta kale inaga adigu wada iyo kooda waxa lagu baray geographic ma jirteen ayaa horta meesha ka xukunta ayaa gagare marka inaga Ethiopia Djibouti ma kala maarano laakiin saameyn kuma leh Muqdisho wasgoyneen Muqdisho dawladda hadda jirtaan waa magac magaalada farmaajo dawlad dhulkan ay leedahay Soomaaliya mataliso awood ku leh maaha boosaasan ay ku leeyeen wad aragtay iska daa inaga wad aragtay Kismaayaan ku leeyeen wad aragtay marka ninka iska dhex boodboodaya waxa la ahaa baqal la daaqday fardo in la mitaysmood waa ninkaas in Somaliland marka la eego habka siyaasadda arrimaha dibadda lafteedu u socoto isbedelada dhacaya dad badan oo Somaliland waxay qabaan inay Somaliland lafteedii aanay doorna ku lahayn rajana ka qabin inay door ku lahaato dareenna ku lahayn adu ka xisbi ahaan gudoomiye ma ku muuqato Somaliland horta wala leeyahay bariga raxamka oran jirtay xamalku aaway Somaliland ku aaway bay jirtaa international arena meena ka muuqanaa ma jirto ولا بحنا كسعون أمريكا كم مقارنة ولا يوروبيين كم مقارنة ولا كم مقارنة أديس أبابا Somaliland is absent all that things موجودة لأن وحوي Somaliland absent حيكون قنطي Somaliland دور شيء كبعدي خلاف بعد عاي حتى تقول هاي وهاي السنة ده بدأ ما هاليلس ما إحنا وكباير كنا هاي وحي دحديني دور شيء كبعد وكباير هاي وحنا هذا ده مقطع إني Somaliland institutions ay beesha ka baxayaan oo magac TV-da daawano waxa ka soo baxayo cod reereed iyo nin siyaasi magac siyaasad qaato hadlaya iyo dad isku hanjabiyo uuna voice-ki institutions baarlamaanka codkiisa ma socdo xisbiyada active ma socdaan ee guurtida ma shaqeynayso wasaaradii active ma aha meesha waxaad moodaa inaan dib ugu noqonno si 1993 94 oo qabaa'il isku hanjabiyo aan maqashay cid baaysa shirbeelad reeb shirbeelad yani waxaan ku dhex jirnaa in fact environment xasuusinaysa early 90s kii baan ku jirnaa and that's why markaan dadaalka wadno inaanu regroup sameeyno dadka isku keenaan lafteeda aad wado waan ku soo daray wada tashigan iyo maalintii dheerna aad ku baaqday ku soo dari doona insha Allah anagu waxaan ku dadaalnay xisbi ahaanba
in maadaama ay nagu socotaan dhowr arrimood oo ay ka mid tahay dagaalka tugraq oo nagu dheeraaday arrintii cilaf weyn oo idina nagu dheeraatay hadda laakiin ta qayb ahaan la dhameeyey inaanu horta aanu dadka sii kala daldalaacino aanu noqon dowladda aanu nabadgelyo siino honeymoonkeeda waa dhaafay taas waa ugu deeqnay saddex bilood waa honeymoonka waa dhaafay wataan ku deeqnay inaanu dadka aanu ku soo jeedno haddaan gudaha ku soo jeedno dowladda markaa dagaalkii way ka jeedsanaysaa iminkana waxaan wadnaa inaanu activate garayno dowladdii asxaabtii afrika garayno waan kulanay anaga iyo magaalansa cabdiraxmaan shalay habeen horaan kulanay madaxweynaha waxaan doorashooyinka hadday doorashooyinkani ay dhici waayaan Soomaaliya waa iska duuduubinaa Somaliland democratizationkeedii wuu maqanaya wuu dhammaaday marka si aan taas u dhicin oo taayirkii inoo wareego waa inaan activate garayno doorashooyinkii laga shaqeeya taas waxaa ku imaanaysa kow inay saddexda xusub isfahmaan hadday saddexda saxiix xukuumaddu isfahmaan baasha waa dhaqaajin karnaa waxaan tusinaa weliba marka baarlamaanka dowladaha hoose guurtigu saddexdoo bilaa sharci ku fadhiya waa unconstitutional marka dooratid mp wakiil dooratid amba loo kala hada amba wakiilada contract social contract ba weeye waxaad u footeysay aduu xildhibaankaaga 5 sano shanta ka bacdi cid matala ma jira waxay ku oranayaan waxa sharcigu oranayaa waa in cid ku bedeshaa cid la soo doortay laakiin la oran maayo fadhi may ku ataana meesha fadhiya ilaa inta cid la soo doortay la keenayo waxa weeye macnaheedu cid la nominate gareeyay cidii la soo doortay baarlamaankii la soo doortay electorka cid la nominate ma bedeli karto waxa bedeli kara uun cid electora dadkii baan soo waday badan meesha soo maaha kii election baan soo wada marka yani maskaxdayda ku ciyaarayaan ummadan waxaanayna haysta waxa weeye inuu sharci oo dhammaynta sharci haddaan ummadda sharciga aan ilaalin imka Ethiopia aragtay markii laga qaaday ina ilay dee sharciga baa loo raacay step by step waa ummad sharci ku nool inuu sharci ma naqaano hadday sharci naqaano kordhisiyo may timaadeen laanno mar kastaba xaaladii lagu kordhin jiray markii u dambeysay abaaru dhaceen ayaa qolo ka sharciya marka duruuf wixii kaloo dhan waxaan kursigan sii fadhiyo ma ogtahay marka waxa weeye si taan u selno waa inay saddex xusbi oo dantooda tahay oo waliba asxaabta macaaridka ay tahay dantiyada inaanu dhammaynaa markeeno mid la kalaas baa samaysnaya mid baa samaysa dhaqaale kordhiya marka dadkaasi ma ogolaanayaan inay ku noolaadaan sidii markii hore ay aabayaashood iyo awsha ku noolaan cilmi lahayn anigu waxaan kuu sheegayaa hadduu cooperation keeno madaxweyne markaa fadhiya asxaabtu markas waa flexible horta waxaan ku sheegay wax xumeeyaan waa qof kala doortay hadduu qof kala doorto uu noqdo qof mudakara oo cooperation dadka dhegeysta oo talooyin dalka waa la wada leeyahay wada wasa laakiin xilkuina waa saaran yahay hadduu dadku dhegeysto oo talooyinka qaato criticismka ogolaado fadhiilaha waa la heshiinaya laakiin hadduu ku nagalad gareeyo adna waad nagalad garanaysa inaga waxaan naqaanaa ficiltanka markaad madax tahayna lama ficiltamo qof madax tahay lama aarsado haddaad tahay madax ya weliga ha aarsan marka anigu waanu ka adagnahay magaranaysaa wadani waanu ka adagnahay waanu heshiin labada xusub macaalin dantan ku wada sheegsanahay kulmiye iyo madaxweynahooda yaa ka adag waxba ka sheegi laga sheegi laakiin waxaan kuu sheegayaa dalka maanta waxaa ka taagan waxay ku xidhanta madaxweynaha la doortay anigu diyaar baan inaan la hagaajino ya يعني dadkeena maamuuska deeqa dadkeena waxa deeqa kelmad wanaagsan kelmad day huwa sadaqa leeyahay moogta imka waxaad qaylinaya gacan libaax iyo jujuuga iyo waxaas oo dhan haduu madaxweynaha soo taagto khudbad wanaagsan waxa dadka xaalka u waramaysa war wixii aan hagaajisano wixii dhexdeena aan dhameysano wixii naga qabiyana aan hagaajisano inta haduu yiraahdo dadku iska fariisan laha laakiin haddaad ficiltantid oo muxuu yahay sheegaya oo muxuu kana sheegaya haddaad ku bilowdid ana waxaan sheegan ku sheegi doonaa yada tan lagama gardhaqin madaxweynaha aad kulanka anagu ismaan madaxweynaha madaxweyne laba hablood markii la shaqeynay moogtay
waxaan kala shaqeeyay arrintii elefweyn iyo arrintii khaatumo labaduna haaf bay kaga tegey oon dhamaystirin khaatumo may dhamaystirin oo ka cali iska tegey elefweyn waa kadib caara ka samaysmay marka anaga wax kaloo noo dhexeeyey dadku waxay moodayaan inaan la taliyo badan moogta labada arrimood bay ahaayeen labadiina waa qabiyo laakiin mid baan kuu sheegaya dalkan ka ogolaan mayno in qof qori ku amarku teergayo oo tacabkii 7 sannadood iyo 10 sano ee halganka inuu baabi'iyo we never accept that unacceptable amba dadka qaldan waxaan leenahay qaldinta jooga amba isaa qaldan waxaan leenahay joog hadduu joogana tale laga gaadhay iskii baan ku jirnaa reersigii baan ugu badan wadanka reersiga ugu badan dhulka weyn xukuumadna ilaa 350 kilomitir geeskii baan nahay wax badan baa jiray maanta ishuudu in maanta in hor yaala waa too much mid qura lama xallin qaar kale cusub ayaan ugu abuurmay adoo marka adigoo arrimihii hore ku yaalan qaar kale haddaad inta qori daba qaadatay hareer iska gurtid halkii aad fadhiiso khatar maaha mushtariga bay is haystaan dowladdii is haystaan business community-ga ay is haystaan maaragtaan cashuurtiiba hadda is haystaan taxiga baabuurleedii bay is haystaan transportation sharcigan la soo saaray marka waa mushkilad adoon tii hore dhammayn markaa sidee baad ula soconaysaa adduunka waxa ka socda sidee baad siyaasadda dibad u yeelanaysaa sidee baad ciidan u dhisanaysaa dagaal baynu ku jirnaa haddaad adigu sidaa isku meeraysid sida qiiqa Somaliland oo sidee marka waxa weeye dhulka la isku waxa weeye position geographic halkan deganahay waa badan casaaida khayraadku maraan adduunka sawirayso inta yare ma jirteen ka soo gashay moojaani reerka siibaane inta kale inaga Puntland whatever you call them waxa lagu baray geographic ma jirteen ayaa horta meesha ka xukunta ayaa gaaray markaan la kulana aniga iyo cali khaliif farmaajo wax badan baan isoo Soomaali degan international community-gana wax badan baan isoo galnay ilaa European Parliament waan tagnay laakiin noomo yeelan ma oran maxaa soo aragsay waxaan tagnay haddana tagay Nairobi aan international community la soo hadlay aan arrimaha ka soo hadlay ma oran maxaad kala soo kulanteen meeshii ciidan maadad wuxuu tagay Muqdisho baasha ilaa Addis Ababa wuxuu tagay haddana magaalada Djibouti ومويل سيدنا مطيع مدحي أنا سوكر أنا كلا سوكر فورميشن ده شيء كان يليسه يا يعني واحد نجم مقام بقى خابك الدولة نبى له شقيني أنا على هلا كرسي أنا هلا كان هيستنى يعني نو أنا ما يسوي هذا أنا لو تشتن نبى ما يسوي دونه مري أنا سومالي لأن نفتي دي أنا الدور نقول هاي بل ما واحد رجلك قبل الدور تضرين ده وقيل دول بلاد كحسبيها قدومي وقيل تايل والأركت إما واحد اللي جيسته أنا وإنك إنه يسمح دومين إنه تكجعنا سعيلش يسمح دوم إجري تكجعنا دار إله روحنا واحد كونسلتيشن ما وضنا حكي أكاديمي وضنا محا إنه حمادي محا إنه هجاجي يا محا إنه هرسن أبورتشينس بعند بينه هاي سنة كان يصفي عنه يسبدل كأدو كسر وكهدينه كيف فايد سنو هذا كيف فايد سنو كل كيشانات رنتيساس عطا oo 60% dadka degan yahay oo codkeenu ka muuqan dadkeeni ya marka all this thing waxay noo harsantahay waxay baahan tahay in horta gudaheena hagaajino oo madaxweynaha dadka meereeyo Somaliland institutions ay beeshaba ka baxayaan oo marka TV-yada daawano waxa ka soo baxay oo cod reereed iyo nin siyaasi magac siyaasad qaato hadlaya iyo dad isku hanjabiyo oo voice-ki institutions baarlamaanka codkiisa ma socdo xisbiyada active ma socdaan وكين قلت ما شقينيسو وساردي اكتف ما ماشي واحد مودا ان دبو نقولنو سن 1993 94 وقبائل اسكو هنجبي وطن wax la saaxiibay wixii horumar shirbeelay Soomaaliland u wanaagsan ayaan la saaxiibay qofna lama saaxiibo dalna lama saaxiibo marka arko inuu waxa tahay wax wanaagsan oo dalkeena iyo dadkeena xudana ayaan hawsha dhinaceeda qabsadaa Sacuudiga maanta oo arkaysay DB West بشدة بلابس بشدة أكتوبر إنه بلابس إن شاء الله تعالى اسمه مية نجح دقي واتي مقالب كي كانتي آدي لكن حدانا أدقي وحدوني وحي تهارك نقاتشن دي أدوم بخسارة أي وتكاد السنة دي ما نديب كاغا على با ما لقاش كلا ما لقاش أنا وتكاغا
shaqaal abuur haddii ba kaga dhacaysa you have to cooperate mataqaana was investors ka dadka maalgashan aad la cooperate kareen aduba khasaara cooperation waa inaga maqan inaga wax inaga maqan yani capacity bioland mishada in haysta maanta waxa weeye Somaliland waa lack of knowledge capacity yani at every level aqoon ma taalo wadan bal aqoon kuma wadi kartid waa aqoonto imaka dad wasaaradda tagtid de aqoon ma taalo there's no any minister formulate kana kasta policy you see the staff ka you see the ministers ka or the junior moogta marka waxa weeye inaga waxaan nibinay dalkan waa la doonayaa investment badan baa la galinaya ya qoradii maqalanaysa Sacuudiga oo kale maalintii madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa ay casuumeen Chamber of Commerce kan yaan u tagay waa dad aad iyo aad kule wariyaan ilaahay meel fiican buu dejiyay de shaqaystana way caawinaa we're ready institutions kan iman jirin immigration kan hadda aragtid budgetkiisa intelligence kan hadda aragtid budgetkeena wasaaradda arrimaha dibadda aragtid budgetkeeda ما عندنا institution كذا سال واحد ترابي سال لو شقيني ودنا intelligence لهن ودنا با ودنا immigration لهن بريجانو لدجانو الدولة دي الصومالية وإحنا أورنجرني أنا قاعد على إيدي من immigration كان نكسر إحنا immigration دوني لأنه إحنا دوني إنه أتكايستونو ودك هنا ما عندنا بتشت ماله staff على سو indicator ماله intelligence كذا ماله ودنا نتكلم ودنا با خارج شدينا ليش وساردين أنا ما أدي بدأ بتشت كذا وحكى بتشت بدنا وهي أدي أباب الكسارك ونشقين شرين هذا كلام مو شقي أبو الكسارك قرن كمية ها يا بتشت بدنا بالهيري وسارد أنا ما أدي بدأ بقى أمد كل كذا حدث تقول حدث ما جيت سوى كاري باتريتيزم ما ينقم دت كان محاضر عقمه كان ما يقانا وبدن المضي أنا وي madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi oo sanad imka ku sii dhaweyn meesha fadhiyo oo talada dalka hayo waxyaabahaasi ka hor doorashadana waa waxyaabihii aad inta badan ka hadli jirteen ku celcelin jirteen miyaanad qabin inuu wax ka qaban karo oo aad ka arki kartaan oo ka kulmi kartaan nolosha ciriiriga ee aad sheegaysa tilmaamaysa wadankeena dhibaato ku tahay in la hagaajiyo miyaanay miskiina u furnayn taasiyo in laga wada hadlo waxa la ilaahinaya xinay ku ama oo loogu la garab taagan yahay aqoon ma taada wata loogu la garab taagan yahay either you have to be an any charisma oo soo wax hogaamin kara oo soo officially ama waa dad urursataa ku caawiya inagu kiina urursan mayno leadership halkaan ilaa maanta ilaa halkaan dhigana waa la flag leadership officially kursiga tag moojane wax kale ka dambeeya ma jiro maalintii ku cadaanaysa marka waxa weeye anagu ma doonina inaan markaa maanta madaxweynena fashilino waa ready in la shaqeyno cabdiraxmaan waa saragnay haddana waan wada shaqeynaynaa waxaan nidhi war moodikeena dee hadduu maanta inaga khareebo oo wad aragto ciyaalkan fadhiistay Soomaaliya yararkan aan wadanka la socon dayaaradda aan ka degayn kolba meel shir iska tegaya halkaa waxay ordiyaan waa adiga xumaantaada wax kale oo ninka imika ordiyay yarkaasi ma jiro بنت وهذا سوريا سناك بالا شاقنا وكلية عبد قاص سوريا سهلة قبحه حقو سوريا ساكو يقانا أنا كان يلا من تقانا قروي هاي سمحة ودي كرلا يبوس هذا دل كل دقيقة سوريا سا يعلى هي كوير غير قولة دقيقة ما بوص ما يستي كهذا كرمين سوريا سناك قبحه كلية إلى ما كداري وين لو تقروي هذا دقاقي ويو ستوب waxaad u fadhiisataa tuqraq saddex jeer uu ka soo celiyay madaxweynaha tuqraq ee dadka iyo gel lahaa garowe 3 times waayo maxaad soo joojinaysaa waad ka qaansatay wayna qabsataa adiga hadda laga hayo soo liisana ka bax waru karabana ka baxay iska soo liisana marka beentan ay sameeysan waxa weakness keena weakness waxa weeye waa tafraaruqeena madaxweynaha waxa waan doonaa u jahayno magalan saay dalkeena sida inanka yare magalan saay jooga Eritrea dhulkiisii soo saxaystay baadama soo cishaday inaan xuduudeena soo cishaan rabno oo dadkeena meedayno oo dadku waa diyaar
سلطان سعيد لاس قرب أنا تجان الله الله سعيد وحنا دوينا ندركينا هاجسنو وحي إنك الحين لما يصنو إسرائيلي لكن دكتور مدحون الباق فراء وما طلعت الشرع. way gudoomiye marka laga hadlayo gudoomiyaha xisbiga Faysal Cali Waraabe khilaaf badan oo idin dhaxeeyay oo admiiriyaha isku mari jirteen baa jira madaxweynihii hore meesha laga qaaday dowladda Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar imika nin Mustafa Cagjar leeyahay madaxweyne cusub ay yimid isbedel baa ka dhacay deegaankii in sidoo kula muuqda madaxweynaha cusub ee haatan shaqada qabtay iyo isbedelada degdeg ah hortaan ku waramay dadkii aanu qofkii qore ka hadlay baa in madaxweyne hore Soomaaliya dhan oo ka aamusan wuxuu sameeyay aanu qore ka hadlay qaar bay daba hadlay wardad adimin oo kada dibta baan ka hadlay qaar dadkan waa biiraqaatiyaal dadkan u baday waa biiraqaatiyaal yaga daba hadlay inagu iyo kilka sharaad ma kala maarano maxayna geeyay xamar ku kulata kilka shayna helna baa dowladnimada siyaan ku helay wafdi baa la diray salaadiin iyo laba noo kale oo la yiri waxaan doonaa in hoodan reserve loo soo celiyo waxa ay dowlad baan jisiinaa idinku laba dowladood iyo Itoobiya ka wada hadla halkaas dowladnimada aan doonaa ka soo dhalatay xamar we don't miss them intaas aan kala maqneen maalmad halkan waa wadakeeni inaan kan iyo dhalinyarta imaka qabsatay waxa weeye inay dadkan waa shantii Soomaaliyeed ba ku nool madaxweynaha 2010 baa inta waxaan ku yiri wararka shantii Soomaaliyeed ba ku nool waxaad ku ilaalin kartaa Soomaalnimo isna saas loo fadhiyaa oo yalftay noo iman insha Allah taala arbadax baa noo iman doona halkan mad ku casuumay halkan ku casuumay dawladuna waa ogolaatay way casuumiyaan waxaan jecelahay marka in halkan ku formulate gareeno on ka caawino oo elf siyaasadii aynu ku wada lahayn deegaanka Soomaaliyeed siyaasadii Oromiyada cadaawada u dhex dhigay ninkii laga baabiin lahaa oo aan geeyay ka qayb galeen nabad iyo wada shaqayn iyo wada sameeyeen halkan baynu ku sameeynaa insha Allah taala halkan waa inuu gacan ka geysanaa madaxda tusayna qaladkii sameeyay aan sameeyaan dhulku waa laba meelood dhalinyaratiina dhul waa ogaadeen dhulna waxa weeye hawd and receive area hawd and receive area dhulka dadka naga soo jeeda degan anagu deganahay aad u degan tahay ninkan halka aan helka joogay ma jiro ilaa meel inay badbay naga degan reer Soomaaliland absasoo marka waa in dhulkaasi ay xuquuqdooda helaan qof kasta way qolad daba joogta heer xuquuqsheeda ma inuu reer isku duubo sidoo sameeyay janika hore waa inay Soomaali xaq dhulkooda wada degan yahay xaqad ku qaadata marka waxaan u sheegnaa haday Soomaali is heshiin weydo waa ceeb shantii Soomaaliyeed doondoy halkaas ku jirtaa ay khayraad bay leedahay marka waanu ka taqaynaa waanu hambalyaynaa laakiin waxaan leenahay cadaalad waxaan maalinta uu sameeyay dawladdu sameeyay kamaan helin madaxweynaha sameeyay adana ma shaqaysan waan tigay insha Allah taala waan tagi doonaa Itoobiya jigta waan tagi doonaa talooyin baan la tagi doonaa hadana waa dadkeeni waa isku dhiig baynahay marka imika magaca duwaan ilahaan wuxuu ninka aad sabab jooga iga ninka xamar ma oran ninka fiiq iga jooga iga xiga waa ninka xamar jooga dad isku dad baynahay hargeysa jigjiga Djibouti what same people waa isku mafris tagtay NFD iyo Soomaaliya waa isku mafris xitaa saacadaha siba wada sheegaa moogta marka dad saas Soomaaliya wada ahaaday saas uu kala culture uu kala aad baad maasantay gudoomiye dawladkaas waxa waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wuxuu injineer Faysal Cali Waraabe oo barnaamijkeena haladayg inoogu waramayay oo ku booqanay gurigiisa barnaamijka waxa idin la socodsiinay aniga Maxamed Cabdiriga oo farsamay qaanisti Cabdisalaan iyo Maxamed tan iyo kulanti dambe hadii Allah u diray assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh balaan idin su'aale maxaa saakay wadataan subaxa qiyaama la hortagi subxaanka ninka saaka jecelo xilka saal hamoodine dhulka aan ku soconayo samaduu ka culus yahay dhulka aan ku soconayo samaduu ka culus yahay سبق إذن كوكلن سبق إذن كوكلن
jecelo xilka sahal hamoodine dhulka aan ku soconiyo samaduu ka culus yahay dhulka aan ku soconiyo